wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Carab ayaa sheegay inay qorsheynayaan in albaabada ay u laabaan jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho qaar ka mid ah kuwaasi oo aan buuxin shuruudaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan ardayda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin jaamacado tayo leh maadaama ay dhiibayaan lacago sidaas darteedna la soo reebi doono kuliyadaha kuwa tayada wanaagsan leh. Wasiirka waxbarashada ayaa tilmaamay inay diiwaan geliyeen dhammaan jaamacadaha ku yaala gudaha dalka haddana ay wadaan qiimeyn heerka tayada waxbarashada jaamacadahaasi. Waxa uu xusay inay qorsheynayaan inay xiraan ka hor doorashada kuwa liita ee aan buuxin shuruudaha looga baahnaa jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Anaga ka wasaarad ahaan kulli jaamacadaha nuqseeya jaamacadaha hadda waa wadnaa hawshooda ayaan dhawad waxaan sameynay institution ahaan ma dhisan yihiin horta ma dhisan yihiin wax magaalada qayl ka dhacay waa aragteen hay'ado lagu dhiiran lahayn iskaga dhiiradaan haddana minimum standard aan sameynay oo loo qaybin doono oo sanad la siinayaa minimum standard kaas jaamacadii soo buuxiyay waa la xirayaa insha Allah taala ma sii shaqeynayso waxaa loo sii degi doonaa academically waxay dhigaan waa hawl balaaran haddii oo ilaahay nafru gaarsan sii joogno haddii kale waxaan dardaarmaynaa minimum standardkaas horta anoo joogaa la qaybinaa intaan doorashada la aadin inaan ka gaarsiiyaan rabaa la qaybinaa marka haddii ninkii kaloo yimaadana waxaan dardaarmaynaa in si cadaalada ciddii soo buuxisane ay shaqadeeda wadato ciddii soo buuxisan albaabada isku dhuf jaamacadaas u xiro sababta waxa waa in hooyo Soomaaliyeed oo ama aaba Soomaaliyeed oo ilmihiisu sidoo wax ku baray loo yahay oo lacag bixinaya in la khiyaano oo la musuqmaasuqo oo waxaan waxbarashadeena beena baalkii maxaa la dhahay la siiyo hadii dambeer xumay noqonay qofkii ku fiirsada aniga kulli kuma fiirsan doono meeshaasaan ardayga aan ka soo dhisi doonaa insha Allah taala hadii la nool yahay kadib hadii ama wasaarad ama shirkad ama meeshu tagaba arday dhisan oo tartankan gali kara ayuu noqon doonaa insha Allah taala. Hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay guddi u xil saartay inay qiimeyn ku sameeyaan tayada waxbarasho ee jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana dhawaan wasaaraddu ay shaacisay liiska jaamacadaha ku yaala Muqdisho qaar kamid ah kuwaasi oo la sheegay inay bixinayaan adeeg waxbarasho oo dhameystiran. Samir Cabdirasaaq Umar wararka muuqaal baahiyaha Hanti TV magaalada caasimadda Muqdisho.